kulankan oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee UK ayaa looga arinsanayay sidii tabaruc loogu geysan lahaa iskuulka hoose dhexe ee Debley oo ku yaala degmada Bulaburte ee gobolka Hiiraan iyadoo ay ka soo qayb galeen waxgarad aqoon-yahano asal ahaan ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo lagu tilmaamo inuu yahay gobolka hodanka ku ah inay ka soo unkadaan dadka maanta Soomaali ka dhex muuqda waxyaabaha aan ka hadlaynay arrimaha aan ka hadlaynay oo xataa marar badan la soo jeedinay nabadgelyada laga hadlo war nabadgelyada waxa la yiri waxay ku salaysan tahay markii loo sameeyo dadku wax ay ku midaysan yihiin oo waa iskuulka waa isbitaalka waa ceelka waa kanaalaha biyaha arrimahaas ay ku midaysan yihiin mar haddii arrimahaas aad u samayso nabadgelyada waa samaysanta marka siciido aragtida degdeg ay aragtay taas iyada ay bilowday waxaan rajaynaynaa in ay u gudubto meelaha kale oo isbitaalka ay u gudubto isbitaalka maanta loo tagayo gurceel baa loo adeeg leeyahay iskuulada iyo kulli inay markaa kulli foundationkooda samaysmo aadaan ugu faraxsanahay haddaan ahay hooyo Soomaaliyeed haddaan ahay qof maaragtay gobolladoo dhan u dhaxayso qaasatan arrinka maanta laga hadlayo waa Debley waa magaaladan ku dhashay tuuladii aan ku dhashay haddii laga hadlayo waan ku faraxsanahay inaan ka qayb galo waxaan rajaynayaa inaan ka qayb galahayo meel kasto oo dalka Soomaaliya iyo Soomaalida maqan oo dhan meeshii laga sheego in bulshadeeda loo adeego aad iyo aad ayaan uga qayb galaa Professor Gore ayaa ku dheeraaday waxbarashada faa'iidada ay leedahay iyo waliba qaar kamid ah aqoon-yahanadii kale iyana kulankan ka soo qayb galeen waxbarashada sida ogtihiin waa furaha aqoonta waaye maxay yiraahaan adduunka dhan anaga meesha ma joogi lahayn haddaanan waxba aqoonin waa dareemaysaa wax kastoo la taabta inay aqoon tahay marka aniga isma dhahaayo maxay yiraahaan iskuulkaas inuu ku istaagayo lugihiisa in maanta xoogaa fundraise la qaaday oo markino lacag yar la aruuriyay laakiin waxa fiican aan macnaha aan soo jeedin lahay ama codsan lahay in arrin contribution joogto ah dadka inay isku qoraan oo bil walba soconayso iskoolkan Bulaburte aan wada kaxna kulligeen wuxuu uga duwan yahay waxa jira iskoolaad badan oo Soomaaliya laga sameeyay kulli buulooyinka laga sameeyay buulooyinka markii laga sameeyana macnaheedu waxa waaye hal cid iska leh laakiin kan waxa laga sameeyay magaalada dhexdeeda markaas inta dad degan meesha ay dhiganayaan kaas uga duwan yahay hadda 10 la isku soo dhigay sida la sheegayo meeshana saxiixnay waa ka badinaa xataa saxiixda haday tiraa ka badinaa la rabaa bishi inaan dhiibo maanta intanadan meesha wada joogna aan noqono reer Bulaburte aan wada noqono waxay u baahan tahay caruurta in la soo ururiyo u baahan tahay waxbarashada ma aha kaliya qofkii wax aan barnay kaliya ma waxa la barayo xataa caruurta si loo badbaadiyo noloshooda waxay u baahan yihiin in loo sameeyo waxbarasho ayagana wax u tari karta problemka ka jira wadankana ka ilaalin karta reerkooda wax tari karaan mustaqbalkooda wax tari karaan marka waxbarashada macnaha ay leedahay iyo faa'iido ay leedahay wax yar ma cid uma maqna ceel uma qodna qofka cid laga rabo in ay arinta wax ka bedesho waa annaga nasiib wanaag wixii waa iska raqiis qaali ma aha 10 pound oo aad bishi bixisahay wax ay ka dhimayso ma laha laakiin collectively dhamaanteen haddaan wada bixino waxaan daryeeli karnaa iskuulkaas waxaan daryeeli karnaa iskuulo kale waxaan daryeeli karnaa isbitaallo ceelal wadooyin waxbarashada markaan ka hadalno guud ahaan gobolka Hiiraan waxbarashada aad ugu fiicnaan jiray laakiin hadda xaaladiisu waa xun tahay sababtoo ah 2005 aan tagay Beledweyne waxaan nasiib darro ah labadii dugsi sare ee ku taalay magaalada Beledweyne dugsiga sare ee Axmed Warsame oo caan ka ahaa iyo dugsiga kale caan ka ahaa ee Sheekh Cali Jimcaale labadaba inaan wax lagu baran maanta oo ay yihiin guryo iyo baqaaro waa wax laga xumaado waana wax laga naxo marka arintan aad iyo aad u jeclaaday runtii oo ah iskuulka xoogaan waa ka warqabay markii ay noqoto in terms of fundraising waa ka qayb gali jiray marmarka qaar maanta waaba la soo kulmay ma sha Allah marka waxaan rajaynayaa dadka bush gareynaya
bulldoserka dambe inaan noqdo oo soo riixayo waxoo idil insha allahu tacaala sidaasaan rajaynayaa. aniga hadda waxaan moogahay magaalada gobolka hiiraan 2 weeks buulaburtan habeenkii koowaad aan seexday maamulaha dugsiga deebleyna waa la kulmay iyo macallimiinta dhammaantoodna waxay wax ka sugayeen waa communitiga Soomaaliyeed reer hiiraan ee qurbaha ku nool. fikradda lagu dhisay dugsigan deebley ayaa iska lahaa gabdhaha Soomaaliyeed ee ka soo jeeda degmadaasi iyadoo ay hormuud u ahayd Siciido Cilmi oo dhawaan ka timid gobolka oo ay soo aragtay iskuulkaasi waxaana ay ugu mahad celisay gabdhihii aas-aasiyaasha ahaayeen ee dhexda u xidhay inay ubadka ka fakaraan waxbarashadooda. iskoolka dad badan ku soo macnaha waa dad badan contribution ka geysta laakiin waa la kala badsadaa contributionka. waxaan rabaa oo kale inaan si gaar ugu mahad celiyo gabdhaha ayagoo wax ka geysteen iskuulka haddana Faadimo Maxamed Dooli aan rabaa inaan si gaar ugu mahad celiyo because wax allaala wax loogu tagay iskoolkaas weligeed bilna ma baajinin mana ka harto wixii la weydiiyana way soo dhiibtaa. marka si gaar ah rabaa inaan ugu mahad celiyo Faadimo Maxamed Dooli haddii yar ugu soo talagalayna aan rabaa inaan siiyo because waxaan rabnaa qofkeena wanaagsan markuu wax wanaagsan sameeyo inaan abaalmarin siino. Faadimo ayaa markiiba la guddoonsiiyey abaalmarintii ay dumarka u garteen si loogu dhiirigeliyo tusaalaheedan wanaagsan. Siciido iyo saaxiibadeed waxay mudan yihiin bilad dahab ay mudan yihiin waxay sameynayaan ilaahay wuxuu raalli ka yahay dadka raalli ka yahay waxaan leeyahay ilaahay raalli idinka noqdo. iskuulkan Deebley inuu noqday iskuulkii labaad ee Buulaburta laga dhisay ee aan ka qaatay contribution iskuul waxaa jira leeyahay Sheekh Xasan Marsane ilaa 400 arday dhigato runtii aadan ugu faraxsanahay waayo waxaa soo baxayo dhalinyaro reer Hiiraan ah oo wax baratay oo gobolka iyo Soomaaliya wax u tari doonto insha Allah. Hiiraan sida loo maleynayo ma ahan waxbarasho waa ka jirtaa aniga waa tagi meel la yiraahdo Buuqa Qable 2500 ilaa 3000 hal iskuul oo dhigtaan soo arkay. My name is Samatar and I'm a student from Mitchellbrook Primary School, and I would like to say this school behind me, Deebley Primary School, Primary and Secondary School, could you please donate some money for these children because they need to be educated and they're not getting educated right now. So that's why we're doing this fundraising thing for Deebley Primary and Secondary School for them to get educated by their schools, and that's all I would like to say. Thank you. 2 September sanadii 2005 ayay ahayd markii dhidibada loo aasay dugsigan hoose dhexe ee Deebley oo ku yaala degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan. isla markaana waxa aasaasiyaasha dugsigaasi la sheegay inay ahaayeen 8 kamid ah gabdhaha ku nool magaalada London ee ka soo jeeda degmada Buulaburte ee gobolkaasi Hiiraan. haddaba munaasabadda maanta halkan ka dhacday oo lacag aruurinta ama fundraising loo sameeyay ayaa waxay ahayd in lagu dalbado sidii loo caawin lahaa dugsigaasi barayaasha ama macallimiinta wax ka dhigta si ardaduna ay tacliintooda ay hore ugu sii wataan. 500 ku dhawaad oo arday ayaa iminka dhigata dugsigaasi Deebley Primary and Secondary School oo ku yaala degmada Buulaburte. Ibrahim Umar Baafe, wararka Universal, London.